halkan waa hoolka sahal ee magaalada muqdisho sidaad arkaysaan dadkii ugu badnaa ayaa ku soo qulqulaya halkan waxaa goordhow ka furmaya shirweynaha daahfurka urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka urur siyaasadeedkan ayaa ololihiisa daahfurka waayahan waxa uu ka socday magaalada caasimadda ee muqdisho urur siyaasadeedkan ayaa waxaa ku midaysan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya sida ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaabe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen waxaa la sheegay in madaxda ururkani ku midoobay ay waqti gelinayaan sidii dalkan ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo coda sidoo kale waxaa la tilmaamay in urur siyaasadeedkani ay qayb ka yihiin siyaasiyiin oo isugu jira xildhibaano iyo wasiire ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale ururkani ayaa waxaa qayb ka ah shacabkii ugu badnaa waayahanna waxay isku diiwaangelinayeen ka mid noqoshada urur siyaasadeedkan ururkani sida dad badani ay qabaan waa mid miisaan leh marka loo fiiriyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee ku jira madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale siyaasiyiin horey dalka xilal ugu soo qabtay waxaa la rajaynayaa munaasabadda daahfurka urur siyaasadeedkan inay ka soo qayb galaan agaasimiyaal xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaabka shirkani uu u dhacayo iyo sidoo kale madaxda khudbadaha ka jeedinaysa waxaad kala socon kartaan TV-ga caalamiga ee Universal Ashir Cabdullaahi Amiin hoolka sahal muqdisho